محمد عثمان حسين الوردي قال لا ولي ما كل واوغي ما كلنتين مر محمد صاحب كوي بري ودن بيسين سو غلي هل كان انوانيه فنانك الله يرحمه محمد نور دريك ayaa dooni iska raacnay ilaa markii rasaas iyo iska day waayeen dayday berbera ilaa cadan sagaashankiiba koobiya sagaashanki inankiisa cadan jaamacadda kaga jiray isagoo u yimid yarkay oo takharrujaya qalin jabinaya ayuu baan hodheelkiisa ugu nimid maxamed nuur markaa waan ka tagay anigu axmed jimcaalo SNM halkaa u fadhiyay oo abtigayna ayaan la fadhiyay سووا كمان كيستزيكا وردي زيكا إيش ربان سفينة دوني بابا وتكويوه اللي مرة سعودي ومرة ربان سفينة ومرة صومالي انت شنو يا فيس قلت له والله الكلام كذا دوني بابا وظلنا وكانوا والرسولي شنو حكاية البلاد وسان كوري سياد بر مركا ما بينا كلام سياد بر تردناه قل كسوي علي الطلاق لو تطردوا ناس الجنوبي ديل انا اجي مع الفرقه ببلاش انا توجيت عشان ابني بيتخرج حابين كيف انا داود فريسنون ليله اني ها ميم يا بخير باشا حرورتي بنا نور غريغري دائم رجا وابد دوني دي غوري فوش اياني هذا على بيا درسته يبقى الفوشري تلفزيون كيف كار كيسو لو ريسريو إنكيسي أو خلين شبينية أو وحاليا مياه وانا يعني أحمد جمال لفدني لكن فرصة وفاتت عليك الفرصة مركز يزوك هيدا بيسي تبدو بكوضي بالي يقولي إمثال يقولوا بكوضي قلب ودنها الله قال أمريكان هي صورة دير لكن وانا محترم معلم بوها إسبا محترم جدا فنشال ومعروفة ولقى يغان لك عرب تولر وكفتن بدن حاسس صد حاسي وحنا ملاقوا لي عرور بدن الله بركيه دي مركا تذكوا ناس للناس وان قرتي مركا كلنتين وان حانو مليني ان توقتيدي مي سغاشميدي ما مركان هوري markii dambaad kulanteen markan 91kii ayaad kulanteen cadan de markii ka horeeyay go'aad kulanteen markaa waxaan bariga aan joognay Qaahira ayaanu fasax nimid Suudaan aniga tirim saaxiibkay naqaabta fanaaniin kaan casuntay markaa masraxaanu kala yar heesnay annaguna de Soomaaliga iyo waxyaga iyaguna ku waday qaadiyeen markaasaan xoog isu sii baranay وبعدين أنا وقاهرة يدي بنسكتنا قلني ده يوصل من إذا عدى وشقية أي هاين السودان فناني وهوينا أنا لما كان معهد كان بدي كتير ميوزك مركي دقال في 67 أن فيصل سيدنا حسوسنا بس إذا جرتا أن واحد الفنان ككرياته وهالسي أم بكهالسي العقد أن هستا يقرط القاضي يو waxaad ku jeclaatay walaal markii dadku ay ku dacaydeen ay yiraahdaan Faysal in lacag jecelo lacagtina uu heesay halee waxa weeye horta baasan in abi ma jiro ilma yar oo kala hadaad u dhigto uu qosliya hadda qiimaheeda ba garar baayo hadaad ka qaadana uu ooyaya magaceeduna lacag waxa weeye ninkii haystaba way la socotaa waa isku cagtiisu bay deelay jeebkay u jirtaa la socotaa marka maraan waxoogay imaan ka shaqaysanay waxaan ku cunno aan weynii ayuumaan waar baashi ilaahay dad u baahan u geeyay hadaba waatan ilaa sideeda la qiimeeyay marka caalamku dad uu ka wada heesaa lacagta waa means weeyo waxba wada kala Soomaaliya hadii aan lahayn marka aanu mana lacag jecel dadkii kama lacag jecel qaar baa ilaa maxaad loo fartay ka lumay oo la saana adeerta hadan urursanayo intii soo gashay oo reer baan ahaa marka midhaha iyo heesta yalaha goorma halak midway markaan joognaba heedo ahayd 77 meelaha madaarka midway baa la dhisay Cumaan soo la 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 la
فيصل علم الفراق أنا أشكي ليمين هيدي مراح يا هست لها ملا وعن كل حاجة تعمل نكين هذيك الحاج فيصل هذيك على ما يراي سنة وان قرتي وان كوفي dhinaca kale fanaanka Faysal Cumar Mushtaag waxa uu ka hadlayaa ama faahfaahin ka bixinayaa sawdka qaraamiga ah ee loo yaqaan subcis habka ay u taalo sida iyo qaabka uu u dhigay ama meesha uu ka keenay isagoo dhinaca kalena tibaax ka bixinaya sida ay fanaanintii hore ee uu isaguna ka mid ka ahaa ee walaalaha Hargeysa la oran jiray aanay heesaha u kala lahayn balse ay u ahaayeen dad walaalo ah oo heesuhu midba kan kale ta uu doono ama uu jecel yahay uu qaadi jiray isagoo dhinaca kalena sheegay farqa u dhaxeeya barigaasi hore iyo waqtiyadan dambe oo uu sheegayo in ay heesuha ama suugaantu noqotay mid hunguri loo adeegsado imse heesad baad adigu samaysatoo qaaday tumatay laxanka samaysatay kuma kala aqaalo dadkana kuma qabsado intaan qubay hadalla qaaliyahay qarsaariyay waa quruur waxaan baan idhahaa Soomaaliga waa la wada leeyahay kolka qof un baa xusuusnaayo helaya laakiin dadka dee kama lihid hadalkuna waxa la yidhi intuu afkaaga ku jiro ammaanadaada yahay kol hadduu dibadda u baxo dadka kama xigtid markaa kol haddaan waxbaba dee laysku siinayn waxna lagu kala macaashayn dadkaa leh anigaas idhi midha dee waxaa anigaa iska balacaleeyey sidaana ku ogow haddaan dhowr su'aalo ku darsado markii waad qaadi jirtay wax la qaadi jiray qaraami subcis markaa waxaad moodaa inuu subcisku soo xidhay heesihii noocaas luqyada qaadi jirteen bal arrimahaygana faahfaahin naga siiba subcis horta qur-aanka marka carruurtu akhriyaysa alif lagu reeb ma yidhaahin kaa kalena alif lasteebeya lagu reeb oo alif laagado koors soo maaha kolkaa heesta waxaan nidhi hala subciyo oo hablaha iyo inamadu hala wada qaado marka subcis baan u bixiyey dabeedna waanu qaadnay habluhu way qaadi jireen si macaan ragga maxamed mooge iyo annagoo berigii hore heesa maanaa kala hayn heestayda iyo waxayga iyo shaarkayga iyo may ahayn ninba tuu doonuu iska qaadi jiray tuu ku macaan yahay annagaaba oran jiray nin kastaa sameeye hebel oo yarabtaa idhoo qaad oo waxa la wada leeyahay hadda soo sheeg soo garmaysid markay lacagta noqotay baase anigu baydkaasaan idhoo markhaataan lahaayo dee ma markhaati un baanu hadal u doondooni hadalkuna sumad ma kala leh nin waliba wuxuu ku leeyahay anaa 22 sameeyey oo wallaahi billaahi qillaahi dargodlaan ku sii socon oo dee way soo kay adaa sameeyeen daa marka subcistuna halkaas istaa ku soo baxday qaraamiga subcis waa hees qaraamiga uun ka mid ah madiix subcis raahaye nugul rakaad waxaasoo dhan baa qaraami laysku yidhaahayo dee baqaraysa heesahan la fadhiya laysu tuurayo ayaa ahaa dee qaraam alqaraami intaasaa laysku oranayay kuwan tuwiiskan iyo buwiiskan iyo berigii dambe dee tuwiista naayra weehey baana soo galay intaan aan dhulbaxnay ayay baashu modernised noqotay